ugu yaraan hal. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Dhamaantiin waa islaamaya. Bariyahan adduunku waxa uu ku jiraa xaalad degdeg ah. Waxbarashadii waa la xilay. Dhammaan waxa la joojiyay meelihii iyo shirarkii la iskugu imanayay. Waxa la xilay safaradii wadanka dibadiisa iyo gudihiisa u baxay. Waxa soo dhan waxa sababay cudurka loo yaqaano coronavirus. Maanta waxaynu soo bandhigi doonaa dhowr xaqiiqo ama dhowr arrimood oo ku saabsan cudurkan. Waxaynu ka hadli doonaa oo ka jawaabi doonaa dhowr su'aalood oo dadku isweydiinayaan. Qodobka koobaad aynu ku bilaabi doono mowduuceenu maanta waxa weeyaan waxaynu isbarbardhig ku samayn doonaa inta u dhimatay cudurka coronavirus iyo inta u dhimatay cudurrada kale labadii bilood ee ugu horeeyay sanadkan 2020. waxaanu soo qaadanaa daraasad ay samaysay jaamacadda Hamburg ee ku taala wadanka Jarmalka. Sida aynu la wada socono ilaa hadda dadka u dhintay cudurka coronavirus waxa ay ka badan yihiin ama ay ku dhow yihiin 8,000 oo qof. bal haddaynu eegno cudurrada kale adduunyada ka jira inta qof ee u dhintay labadii bilood ee ugu dambeeyay. haddii aynu ka bilowno common cold-ka ama durayga caadiga ee nagu dhaca labadii bilood ee ugu dambeeyay waa January iyo February 2020 waxa u dhintay dad ka badan 69,000 oo qof. haddii aynu eegno malaariyada ama cudurka kaneecada loo yaqaano waxa u dhintay 140,000 oo qof dad kor u dhaafaya. inta qof isdishay ee iyagu gacantooda isku khaarajiyay waxa ay ka badan yihiin 153,000 oo qof. inta u dhimatay road accident ama shil baabuur ama shil uun haddii aanu nidhaahno ku doonaba ha ahaado waxa ay ka badan yihiin 193,000 oo qof. cudurka HIV-ga waxa u dhintay 240,000 oo qof dad ka badan. sigaarku waxa uu dilay labadii bilood ee sanadka ugu horeeyay 716,000 oo qof. cudurka kansarkana waxa u dhintay 1,177,000 oo qof. halka markaa maxaa inooga soo baxaya daraasadda ay jaamacaddu samaysay in dadku ay u dhinteen sababo kala duwan labadii bilood ee ugu dambeeyay laakiin sababta ugu yar ama dadka ugu tirada yarli in ay u dhinteen cudurka coronavirus. haddaba daraasadaas marka aynu eegno iyo daraasooyin kale aynu soo bandhigi doono waxaynu ogaanaynaa in cudurka coronavirus uuna ahayn sida looga buunbuuninayo meediyaha ee ay ku jirto arrin siyaasadaysan. waynu sheegi doonaa sababta ka dambaysa in cudurkan la buunbuuniyo adduunyada oo dhanna dadka lagaga cabsiyo ujeedada laga leeyahay. daraasadda labaad ama su'aasha labaad waxaynu ku soo bandhigi doonaa dadkii u dhintay cudurkan iyo da'da ay jireen. waxaynu soo qaadanaynaa sida shaashada idinka muuqata warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka u qaabilsan adduunka ee loo yaqaano WHO. dadka u dhintay haddaba cudurkan haddii aynu ku eegno xagga da'da laga bilaabo from 0 to 9 macnaha waxa weeyaan carruurta hadda dhalatay ilaa carruurta 9 jirka wali hadda lama hayo hal qof oo dhintay cudurka coronavirus. da'da 10 ilaa 19 inta u dhaxaysa waxa u dhintay 0.2. taa macnaheedu waxa weeyaan boqolkii qof ee xataa cudurka ku dhacay da'da 10 ilaa 19 inta u dhaxaysa boqolkiiba hal xataa uma dhiman waa 0.2 weeyaan. dhammaan waxa la mid ah 20 ilaa 29 30 ilaa 39 kor marka la soo gaaro 40 ilaa 49 numberku kor buu kacayaa laakiin wali ma badna 0.4 ayuu soo gaaraya. waad arkaysaa shaashada idinka muuqata dhammaan range-ka ama tirada dadka u dhimatay cidda ay u badan yihiin. cudurkan haddaba qofka u dhiman karaayay waayo sida ay sheegeen khubarada caafimaadku waxa weeyaan inta u dhimatay ilaa haddana la hayo 8,000 ee qof badankoodu waxa weeyaan waa dadkii ka weynaa da'da 80 jirka walibana ay u dheereed cudurro khatar oo markii hore cudurro la noolaa. dadkaas oo kaliya ayaa ugu jira khatar inay cudurkan ku dhintaan. haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa weeyaan maxaa keenay in cudurka aad iyo aad loo boonbooniyo warbaahintana maalin walba uu ku jiro iyadoo uu yahay walibana cudurka ugu yar ee loo geeriyoodo adduunka xaaliyan inta 2020 sababta arrintaa keentay in meediyaha lagu boonbooniyo waxa ay khubaradu ku sheegaan in ay tahay laba arrimood. arrinta koobaad oo ka dambeeyaan shirkadaha ganacsiga waayo haddii aynu u fiirsano inuu dib ugu noqono shirkadaha ganacsigu labadii bilood ee ugu dambeeyay faa'iidadoodu dhammaantood way bilaabantay. haddii ay noqoto shirkadda Amazon haddii ay noqoto shirkadda kale Alibaba dhammaan alaabihii ay iibinayeen qiimihiina way bilaabeen alaabtiina dalabkeedii aad ayuu u kordhay. dhinaca kale shirkadda Facebook iyada lafteeda waxa la sheegayaa in qiimaheega xagga suuqa ay taagnayd uu aad u bilaabmay waayo iyaguna waxa ay ka faa'iideen iclaanaadka iyo ogeysiisyada loo isticmaalayo coronavirus ee lagu xayeysiisanayo bogooda Facebook. sida awgeed arrintaas waxay dhalisay shaki badan oo ah
in cidda ka dambaysa in xanuunka la boonbooniyo ay yihiin ganacsatada waaweyn iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka ku nool si iyaguna ay faa'iido badan ay uga helaan. sawirkan hadda idin muuqdaa waxa uu tilmaamaya waa mid ka mid ah beejajka internetka wax laga iibsado. waxa uu tilmaamaya qalabka lagu nadiifiyo gacmaha ama qalabka lagu talagalay in lagu nadiifiyo gacmaha oo qiimihiisii kordhay. mararka qaarkood sida sawirka idin muuqata waxa uu qiimihii lebilaamay 500 oo jeer. qolada labaad ee ka dambaysa in cudurka la boonbooniyo waxa weeyaan waa dawladaha oo ka faa'iideysanaya caawimada ay bixinayso hay'adda caafimaadka adduunka iyo qaramada midoobay ee loogu talagalay wadamada uu cudurku ka dilaacay. sida awgeed dawladaha Afrika maanta waxa ay ku tartamayaan wadanka kale inuu ka kiisas bato oo uu ka cudur bato si isagana uu u helo caawimo fara badan. marka labada qolo iskaashatay oo ganacsatada iyo shirkadaha caalamiga iyo dawladaha oo dhaqaale raadisa ayaa ugu talagalay in dadka laga nixiyo oo laga faa'iideysto baahiyahooda. sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka oo qaabilsan WHO dadkii uu ku dhacay cudurku 70% way ka caafimaadeen. waxaana taasi cadeyn oo ah magaaladii uu cudurku ka bilaabmay ee Wuhan ee ku taallay China gobolka Hubei. sida sawirada hadda idinka muuqata dhammaan isbitaaladii ay dawladdu ugu talagashay in lagu karantiilo dadka cudurkaasi hayo siday u dhanaayeen waa ay mareeyeen maanta. waayo dadkii cudurku hayay oo dhan dhammaantood way ka wada caafimad. 70% maanta dadkii cudurku ku dhacay way caafimaadeen. 28% waxa la rajaynayaa inay caafimaadaan. 2% oo soo sheegnay dadkii ahaayeen ayaa u dhintay cudurkan. marka maanta ma jirto sabab loo boonbooniyo cudurkan loogana dhigo mid xadkiisa ka baxsan. haddii la rabo maanta in cudur laga hortago ama dadka dhimashadooda laga hortago waxa ka mudan inta coronavirus la boonbooninayo in sababaha kale ka muhiimsan ee dadku ay u dhimanayaan in wax laga qabto. su'aasha kale muhiimka in isweydiino waxa weeyaan ay dad badanna aad isku weydiinayaan ma yahay cudurkani mid la sameeyay ama ma yahay shirqool uu Mareykanku ugu talagalay inuu ku baabiyo adduunyada kale. runtii su'aasha markaynu jawaabteeda soo koobno cilmi ahaanna aynu eegno jawaabteedu waa maya. waayo ma jiro awoodda bini'aadanka cid samayn karaysa cudur ama virus kadibna adduunyada ku faafin karaysa. dadka noocaas oo kale wuxuu aaminsan waxa loo yaqaan inay aaminsan yihiin aragtida loo yaqaano nadariyatul mu'amara oo aynu mar dambe ka hadli doono. nadariyatul mu'amara marka macnaheedu waxa weeyaan inuu qofku aamino wax waliba inay cid ka dambayso. marka virus ama cudur cid adduunyada samayn karaysa ma jirto. waxayna soo hoosgalaysaa arintaasi al-harb nafsiya wax la yiraahdo ama dagaalka nafsiga. mar haddaynu aaminay in virus ama cudur la samayn karayo marka waxaynu noqonaynaa sidii dadkii la sheegay col hortii jabay noqday baynu noqonaynaa. marka waxaan waa cudur Ilaahay keenay waana virus muslim iyo gaalna waa loo sameeyay oo waa ku dhici kara cid samaysay iyo cid adduunyada gacanta ku haysayna totally haba yaraatee ma jirto. laakiin waxa lagu kala fiican yahay sida looga faa'iideystay. shirkadaha qaarkood dantooda uga faa'iideysanayaan dawladaha qaarkoodna dantooda uga faa'iideysanayaan. cudurku markii uu ku faafay magaalada Wuhan ee dalka China dadku waxa ay u degdegeen inay soo iibsadaan qalabka la iskaga ilaaliyo cudurrada ama viruska. tusaale ahaan waxa aad loo iibsanayay face mask iyo muraayada iyo dharkan loogu talagalay inay jirka ka ilaaliyaan virusyada. haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa weeyaan ma u baahan tahay inaad qalabkan oo kale aad soo gadato. hay'adda WHO waxa ay ku talinaysaa in aanad soo iibsanin qalabkan oo kale haddii aanu ku hayn cudurku. sababtuna waxa weeyaan haddii qof waliba uu iibsado face mask iyo muraayad waxa ay keeni doontaa sidii ka dhacday wadamada qaarkood inuu qalabkani ka dhamaado goobihii caafimaadka. hadhowna wadanku uu qalabku aad iyo aad ugu yaraado. midda kale arinta kale muhiimkiina waxa weeyaan qalabkani haddii aanad xanuunsanin wax alliye wax faa'iido oo ku soo kordhinayay ma jirto. qodobka kale muhiimkii waxa weeyaan haddii aad aragto qof ay ka muuqdaan calaamadaha viruska sida qufaca iyo isniisinka ama hindhisada waxa muhiima in aad ka fogaato ugu yaraan hal. waxaan ku soo gabagabeynaya inaad ogaato cudurka coronavirus wuxuu la mid yahay sida cudurrada kale adduunyada ka jira ama kuwii soo maray sida durashinbareedka iboolaha iyo durayga oo kale. waxaana uu kaliya ta saameyn ku keenaa ama uu dhib ku keenaa dadka waaweyn ee xanuunaya. cabsidana inaad ka yarayso ilaahayna in aad tala saarato. wasalaam.